dirsana midiyaan ku afaysan midiyto iyo afaysan xulay war gabadhii ayadoo oo degmada Hurwaa ee gobolka Banaadir joogta ayaa wiil Sweden jooga mid uu afaystay jilinkan ayaaba ee gadanba shiqala ahay ku soco jilinka ku soco no bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaynu barnaamijka ku eegi doonaa dulmiga cad ee loo geysanayo wiilka Soomaaliyeed waxaan isla eegi doonaa muuqaalka lagu dulminayo inaga oo ka eegi doonaa luqadda jirka oo aan qiimeyn ku sameyn doono hadalladooda oo isgafaya been fara badan oo lagu dhex abuurayo isla muuqaalka ay sameynayaan cadeymaha ayaynu isla daawanaynaa ilaahay baa fashilaya oo ceebtooda banaanka soo dhigaya kuwani ugu tala galay in wiilka maskiinka ah ee qoyskiisa u shaqeysta in ay noloshiisa dhulka geliyaan ayaga oo 4 sano shaqeeyay cunayay dhiidkiisa maalayay ayaga oo ku heshiiyay qoysku dhammaantiisba hooyada caruurta dhashay ka soo bilow gabadha wareysiga bixinaysa oo aan baahaynba gabadha uu wiilku shukaansanayay ku xiji iyo gabadha kale iyo gabar kale oo qaraabo ah 4 qof ayaa ku heshiisay sidii wiilka maskiinka ah loo khiyaanay lahaa taa dib ayaan ka eegi doonaa aynu isla eegno wareysiga gabadha la yeeshay inaga oo ka eegino luqadda jirka oo aan qiimeyn ku sameyn doono hana hadaladeeda qaabka ay beenta u abuurayso oo gabadha ay wareysanayso ay ayadu jawaabaha ay gabadhaasi bixinayso ugu abuurayso waan hubaa dad badan oo ku jahwareersanaa arrinkani in ay wax badan ka fahmi doonaan muuqaalkani balse saaxiibayaal inta aynan u guda gelin marka hore halkani waa Alpha Media Group ku soo dhawaada channelka haddii aad ku cusub tihiin oo ku soo biiro oo kamid noqda saaxiibada halkani ku xiran oo mar waliba u soo dhacaan xogaha iyo barnaamijyada aynu baahino aniga oo barnaamijka in la socodsiinaya magaciigu waa Khadar Kaysi ku soo dhawaada barnaamijka oo faahfaahsan soo dhawaada mar kale saaxiibayaal dulmiga wiilkani loo geysanayo ayaynu isla daawanaynaa oo aan qiimeyn ku sameyn doonaa luqadda jirka inaga oo ka eegayna aynu ku bilaabano muuqaalka marka hore intiina aan fahansanayn hana oo aad wada garanaysaan oo inta badan sheekooyin been abuur ah oo ay diinta iyo dhaqanka ay maaragtay ku suurad xumaynayso ayay sameyn jirtay oo ay ku caanbaxday gabar ayay wareysatay oo ay ku sheegayso nin ay shukaansan jirtay in uu muuqaal ka duubay muuqaalkaana uu ku rikaateynayay muddo 4 sano ah marka gabadhii ay ku sheegaysay in wiilku rikaateynayay 4 sano oo muuqaal ka hayay inta sixray muuqaal ka duubtay marka gabadhii uu shukaansan jiray gabar la dhalatay oo ku hooyo ah ayay wareysatay iyadoo ku sheegaysa gabadha uu shukaansan jiray in ay tahay sheeko been abuur ah oo ay isla sameeyeen hana iyo gabadhani ay wareysanayso ayay social media soo galiyeen oo ay wiilkaasi ku sumcad dilayaan marka hana oo istustay gabadha ay wiilka isi shukaansanayeen ee sida rasmiga isku shukaansanayeen maadaama aysan jilaaf fiican ka noqon karin sheekadani been abuurka ah ee wiilkaasi in lagu sumcad dilo la doonayo waxa ay wareysatay oo ay ka dhigtay gabadha dhacdadu ku dhacday gabadha ayada la dhalatay ee ka weyn taas oo ah gabar la qabo waliba caruur u joogto beenta marka ay jilinkeeda u soo xulatay gabadhani gabadha la dhalatay ayaan isla daawanaynaa cadeymaha rasmiga ah ee ku jira ee beenta aan sida fiican looga shaqeyn banaanka u soo saaraysa gabadha wax wareysanaysa waa Hana Abuukar gabadha la wareysanayana waa Ismahaan Cabdishakuur Warsame oo ah gabar xaas ah oo la qabo aynu bilaabano muuqaalka halkan ku weydiina markii uu ku soo wacay ani fiidiyoyaasha kala duwan waan daawaday uu ku soo fiidiyo badan baa isoo dirtay fara badan baa isoo dirtay okay waxa soo dhan waxa uu asaga haya ka badan ma fahantay meeshan maxaad ka fahantiin aqligiina ka shaqaysiya waxa ay Hana gabadha leedahay oo ay u sheegaysaa
inay ayadu fidiyaal badan u soo dirtay yacni gabadhii muuqaalada u soo dirtay ayay u sheegaysaa hawleeda u miirinaysaa muuqaalo ayaad ii soo dirtay marka gabadhii muuqaalada u soo dirtay waa sida ay sheegayso wiilka ayada xiriirka ka dhaxeeyeen beenta ahaa ayay waxay leedahay muuqaalada aad ii soo dirtay kuwa ka badan ayuu ka hayaa yacni macnaheedu waxay ka dhigan tahay sheekada dhanba cidda darawalka ka ah oo hawsha wada oo aktarada ah waa Hana oo gabadha u meerinaysa wixii ay dhihi lahayd marka maalin walba oo joogto buu ku soo wacay oo ku dhijinaya isku kay qaawinaya kan ismay mise wiiga hal mar la bishi hal mar door jeer oo waxa ma aniga yar door jeer marka ay hadda marka aqlistay marka u tiiday markaas oo idaanaya waa ku soo dhiga okay markuu ku soo wacay wuxuu ku leeyahay isku kay qaawinaya automatic anigu waan maqlay waan arkay naya sumcad حتى وإذا naya noloshay wax ma sumcad koodeed intaasoo ku hadda ayay bilaa inoo tahay adinka ayaaba yaabi doonee gabadhu waxa ay leedahay wiilka i rikaateynaya 4 sano wuxuu i leeyahay oo mar yiri sumcad yani si aad isku dishid marka waxay ka dhigan tahay inuu doonayay inuu nolosheeda soo afjaro sida ay hadalka u dhigayso ama muuqaaladaas ayaan ka faafinayaa haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay muuqaalkii haddooba haystaba maxaa ku qasbaya inuu gabadha yiraahdo sumcad yani inay isdisho maxaa isaga ugu soo kordhaya su'aasha kale isweydiinta mudan waxa ay tahay muuqaalka qayb ka mid ah ay waxa ay ku leedahay inaan gabdha la kulmo ima ogoleen حتى markaan tukanayo muuqaal ayuu maaragtay waxa weeyaan isku soo jeeda ayuu leeyahay soo ii controlo yani qof uu controlanayo ee uu asagu maamulayo yani qof maseer badan amal sheeka ah marka gabadha uu sida u ilaashanayo ninka dhahaya isdil ee suncab intuu ka jiraa waa yaab gabdho badan ruuxu gaar oo gabdha xaafadda la tigan oo yiraahdo kaamira ka dooqaad lacag u soo tuura ii fiiriya meesha baras waxay sameynaysaa video iga soo tuura anoo daacada iska ogaadi way u qoslaan guriga ay bimaanayaan beentii ay sheegaysay ayaa waxa ay noqonaysaa mid ku soo laabanaysa hadda waxayna lahayd suncab ayuu yiri soo naftii dhaafiyo haddana waxa ay leedahay gabdhaha dariska ah ayuu maaragtay muuqaal iga soo duwa meeshii aadaysay iyo cid yani waxay ka yani qof muhiim agtiisa ka ah ayayba ahaydba kaba soo qaadba inuu muuqaal yani dad kale uga duubayeen oo la socdo xaaladeeda dhaqaaqeeda yani intee laga helaaba qof dad kale lacag ku siiraya sidii uu adiga ku waardiysan lahaa yani qof aad agtiisa ka weynta ayuuba ahaabe arintu inaad suncabtayba noo joogtay oo aad isdisho inuu doonayay haddana arintani oo inuu ku ilaashanayo qof maaragtay agtiisa ka weyn aad tahay intee ka keentay walaalay marka meeshan jiliinka waad ku fashilantay waxa laga yaabaa inay kaaga fiicnaan lahayd ba gabadha ay sida rasmiga wiilka u wada xiriiri jireen oo xiriiru ka dhaxeeyay inay jiliinkana sameeyeen inay kaaga roonayda laga yaabaa noloshay wax ma sumcad koodeed intaasoo ku codadkaas ma haysaa uu habar yar suncab markuu kula codadkaas ma haysaa ma doobin doqonnimo ma duubin doqonnimadeyda ah ma doobin doqonnimo doqonnimo ka weyn oo aad samayn lahayd anigu ma ogi adoo caruur leh oo xaas la qaba ah in aad jiliinka noocaan ah in aad samayso isku daydo waa lagaga wanaagsanaa suncab uu ku leeyahay dada kuu soo dirsana midiyaan kuu afaysan midiyinto iyo afaysan xuleed war gabadhii ayadoo oo degmada Hurwaa ee gobolka Banaadir joogta ayaa wiil Sweden jooga mid uu afaystay balak ku ciyaaday meel war waxay naga riday meel aad maaragtay wax weeyaan aan ka soo laaban karin hawl kaleeba nagelisaba mid afays iyo maaragtay in mid isku afaysta bad kaleeba nagelisaba subhanallah warjiliinkani mad laga soo fikray ma ahaan mid maaragtay wax weeyaan si fiican loo soo farsamay ma ahaan war editing oo soo maray waxaan kale maxay uga jir weysahana warhana maxaa ku dhacday wiil Sweden jooga ayaa gabar Muqdisho joogta mid uu afaystay
وعفيسان بديتو يعفيس الحلال aynu kusii soconno fashilka waraysigani been abuurka ah ee wiilka la doonayay in noloshiisa oo dhan eber looga dhigo. Sihaam waa gabar sacad ah, waxa ay la dhalatay Caasho oo wiilku uu shukaansan jiray oo shiiqaal ah. Marka ayadu ayaa shiiqaal iska dhigaysa. Bal su'aal la weydiiyo ah qabiilkee ayaa tahay oo ay hana weydiiso u baastay. Waxay ku jawaabtay inuu fiirino. شقالة أهي Jilinkan ayaaba ee gadanba. Shiiqaala ahay. شقالة أهي Shiiqaala ahay. Ku soco jilinka ku soco. شقالة أهي sheeqaashaadana لا loo bogaagana محمد عاقني Maxamed Aagane. محمد عاقني marka walaashay qabiilkan waan ka diidnay oo taas maaragtay waxa weeyaan jilinkan waa tan waan keen weysay oo waa ku socon weysay marka noo sii wada hadalka. ninka yuu yahay مرسل سبي أولي جري Hana ayaa markaan isku dayi doonta inay jilinka ka qayb qaadato oo dhinaceeda ama doorkeeda ay ka ciyaarto. مرسل سبي أولي جري وإذا باري عدواي alla ba'ayay alla anigaa jabayay ninka waa nin hadda ka hor gabar Soomaali ma xistin gabar Soomaali aan waraysan jir amuu igu noqdaa hooyis baa lacag miya naagaha way badan yihiin keligee ma ahan habar gabdho badan oo intaas fiidiyooga aan ku soo dira fiirsaan oo u wareejinaan gabdho badan aan ku jira keligee ma ahan waa og warhana waa hoogtayay ama ku noqda wiilkii gabdhaha kale. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. Subhanallah. Hadda ninkii isqarinayay oo maaragtay magacyo kala duwan oo la baxay lagu hayay. يعني muuqaalku dheer yaanu ma soo wada qaadan karo inta uu yani dhowr daqiiqan ka duubayaan soo qaatay marka hadda waxa ay leedahay waxaynu xaas qabo ii sheegay yani macnaheedu waxay ka dhigan tahay nin mustaqbalkiisa aan qarin ayuu ahaa familkan wuxuu ka dhigtay familkiisa oo kale yani gabadha uu shukaansanay ee gabadhan la dhalatay wax uu ka qariyay ma jirin nin daacad ah ayuu iska ahaa nin naaqo oo laba cunug dhalay waaye sidoo iigu sheegay حق هدي القرية وحال رفيرها أيو كدلاعة يعني هذا الكان أي شيء يسو قبل إن كسر فكذا وأهل الناقبي أيو أها ولا عرورة أيو ليه مركا نينكا يعني وحا يموتشينا يا هذا الكاس نين دا عد أو قبلنا نلقطي مستقبل يوماركتي كلها أيو أها qoys kan inuu isku dhiibay bil walba lacag ay u soo diri jiray wareysigu bixiyo ayuu ku sheegay waxa oo dhan qoyskuna inta uu heshiiyeen iskaga ciyaari jiray ninka miskiinka ah daanyeer weyn ayuu u ahaa ala kulli xaal ay haddana waxay ugu dareenba dacaayad heer caalami ah oo aan loo meel dayin awar waa hooyo waay waa harsan waay hadeertan heeran ka carar buqdishaa gaara war gabadhi waa hooyan weysay oo waa harsan weysay maxaa yeelay midi nin isku dhan jooga iyadoo muqdisho joogta ayuu midi u afaystay waan ogahay muqdisho inaa ka soo baxdo aan Puntland ku keenay alxamdulillah adiga ayaa heerkaas ka dambeys ilaahay janna firdaws ala ku kalimadii meel baawida waan ogahay inaad muqdisho ka soo baxday oo aan muqdisho ka soo waday oo aan Puntland ku keenay alxamdulillah no. waan ogahay muqdisho inaa ka soo baxdo aan Puntland ku keenay alxamdulillah يعني gabadha ayaa waxa ay tiri muqdisho waan ka cararay marka ayadii waxay leedahay waan ogahay inaan muqdisho ka soo waday oo aan Puntland ku keenay يعني inay la jiibisay ay isku dayeysay laakiin dhiiqa ay dhaxda ka fariisatay yani xaq ayaa fiira ka dilaacay wiilka sida loo durminayo dadka Soomaaliyeed oo dhan way u jeedaan anagoo dhan waa u jeednaa hadda ogaada muuqaalkaasi in ka badan hal saac ayuu soconayay wallahi inaana joojin yani 8 daqiiqo camal ayaan ka duubay
انت ايا انتاسو قلد كسو دخ بخدي halkaas maxaad u maleynaysaa meeqa qalad ayaa kasoo dhex bixi karta yani beenta yaynu ku dul jilayaan ayaa wax walba iga daran gabadha ninka qabane waa dulli gabadhan sihaam ah ninka qabaahi waa dulli hadii uu sidan ku qabo oo ku og yahay ee uu og yahay yaani xaaskiisa codkeeda ma uu aqooweynayo hadda baraha bulshada magaceeda laga sheegayo hani Cabdishakuur Warsame haddii aad raalli uga noqoto dulmiga ay xaaskaadu sameynayso de kulley dulinimo ka weyn inay jirto u malay maayo saaxiibayaal barnaamijka xiga ayaa inoo balama haddii Allah